السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلانتي وعنا wanaagsan dhammaan saaxiibada ku xiran janaalka Cabdi Khayr soo dhawaada muuqaalkeen waxaan ku soo qaadan doonaa qiso aad iyo aad u qurux badan midda oo ka hadlaysa ku kalsoonaanta Allah subhanahu wa ta'ala qofka inuu rabbi ku kalsoonaado wax weyn ayay uga dhigan tahay Allah subhanahu wa ta'ala haddaad ku kalsoonaatid wax badan oo baraka leh ayaad helaysaa waxaa macquul ah irid inta kuu furnaatay lagaa xirin intaasna oo qeyr kuugu jiray nin baa wuxuu deganaa tuulo waxa uu haystay sac iyo weyl saca iyo weesha isnuugaya waxa uu ka biilanayay ciddiisa tuulada waxaa deganaa laba nin labada nin waxay ahaayeen niman ku saaxiibay in subax walba cidaha ay ka qashaan hilib sidii doonaanba ha uga qashaan subax walba cid ayay hilib uga qalnaa jirtay soo habeenkii dambe asiga ayuu ku soo aaday wareegtadu waxaa la go'aamiyey ama la qorsheeyey in asiga loo tago la iskagana dhigo malaa'ig Allah subxaanahu wa tacaala u soo diray waxay dhaheen waxaan ku dhahaynaa waxaan nahay malaa'ig Allah subxaanahu wa tacaala kuu soo diray Allah subxaanahu wa tacaala wuxuu ku yidhi berri waa inaad marti qaadaa dhammaan akhyaarta ama odayaasha tuulada oo dhan una qashaa saca iyo weesha sidii ayuu yeelay wayna ka soo qayb galeen nimankii hilibkii ayaa la cunay mid ka mid ah raggii meesha fadhiyey ayaa waxa uu yidhi ninkan hal weel iyo hal sac ayuu lahaa labadii ayuuna qale xaggee ayuu wax ka helay intii u tegay ayuu weydiiyey oo yidhi xaggee wax ka heshay sacii iyo weeshii waa adiga qalay marka ayuu yidhi iska cun waxaani waa wax xag alle ka qorani marka ayuu yidhi maya macquul ma ahan sidee wax u jiraan wax ii sheeg marka ayuu yidhi malaa'ig ayaa ii timid uu yidhi waxaana Allah subxaanahu wa tacaala uu soo faray in aan qalo saca iyo weesha labadii nin meesha ayay fadhiyeen mid ka mida ayaa isceli waayey intii istaagay ayuu yidhi aniga iyo hebel ayaa u heshiinay waxaan ku heshiinay inaan iskaga dhigno malaa'ig kuna dhahno waxaa inoo kaa soo diray Allah subxaanahu wa tacaala waxaan doonayaa inaad qashid weeshaada iyo sacaaga waxaan doonaynaa inaan hilibka wax ka cunno labadii nin ayaa la qabtay markii dil lagu bilaabi ayuu ninkii yidhi u kaadiya ha dilinina ka leexda Allah subxaanahu wa tacaala ayaa ka hadliyey Allah ayaana qadaray ha laga leexda ayuu yidhi markii uu raggii ka celiyey ayaa nin meesha joogay oo ka mid ah raggii akhyaarta ahaa oo meesha lagu marti qaaday ayaa yidhi maadaama ninkan sicii iyo weeshii uu lahaa aan meeshan maanta ugu quraacnay ama uu nagu marti qaaday waa in nin walba oo inaga mida oo u keenaa sac iyo weel meesha waxaa fadhiday 40 nin oo akhyaara oo nin walba uu leeyahay qoys 40kii nin waa uu baxay nin walba wuxuu keenay sac iyo weel 40 sacaad iyo 40 weel waa 80 neef Allah subxaanahu wa tacaala ku kalsoonaanta oo ku kalsoonaado Ilaahay wuxuu ugu bedelay ninkaani inuu Allah subxaanahu wa tacaala siiyey wax ka khayr badan labadii neef ninkii muxuu noqday nin xoolo leh laba neef oo kaliya ayuu lahaa balse hadda muxuu haystaa 80 neef ayuu Allah subxaanahu wa tacaala milki siiyey ninkii waxa uu gartay Allah subxaanahu wa tacaala arrinkiisa inuu yahay arrin weyn ninkan wuxuu og yahay Allah subxaanahu wa tacaala inuusan isagu dayacin wax walba waxay ku dhaceen amarka Allah subxaanahu wa tacaala ogow haddaad ku kalsoon tahay rabbiga marnaba ma baahan doontid bal baahiyoo dhan isma arki doontiin nin kasta oo ku kalsoon rabbigiis wuu liibaanay ilaahay subxaanahu wa tacaala ma ahan baqiil Allah subxaanahu wa tacaala waa mid deeqtoon kana deeqtoon addoommadiisa oo dhan ilaahay subxaanahu wa tacaala waa mid qaniya annaguna waxaan nahay addoommo qura ah asiga ayaan u baahannahay oo masaakiin ayaan nahay waxaan u baahannahay inaan asiga gacmaha u horsano dad badan ayaa isku dayay inay noloshooda horumariyaan maxay u baahan yihiin taageerada Allah subxaanahu wa tacaala garab istaagiisa inuu asigu garab istaago haddaan Allah kula jirin Allah subxaanahu wa tacaala ku garab siinin marnaba ma guulaysan doontid naftaada iyo nafteeda waxaan u dardaarmayaa Allah ka cabsiga aan noqonno dad Allah subxaanahu wa tacaala ku xirnaada naftaada ogow dadka kale waxa ay yihiin ha ku mashquulin ugu horeyn taada garo meel saar Allah subxaanahu wa tacaala waa naxariis badane hada wabillahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh